التعبير عن شكر لحكومة كندا، تايلاند والUNHCR وكل لدي قضية عام 2012. البحرين راح تعذبني لأن أنا حكيت. kulan habboon idilkiinba kuna soo dhawaada mowduuc gaar ah oo aynu maanta kaga hadli doono laba qof oo saameyn ku yeeshay dowladaha carabta kuwaas oo iska dhiibay dalal kale oo aan ahayn dalalka ay u dhasheen. labadan qof ayaa kala noqon doona Rahaaf Maxamed Al Qanuun oo ah gabadh Sacuudi Arabiya u dhalatay oo 15 January iska dhiibtay magaalada Toronto ee caasimadda dalka Canada. qofka labaad ayaa noqon doona Xakiim Al Carabi oo u dhashay dalka Bahrain ahaana laacib kubadda cagta kaasi oo Australia ay siisay dhalasho qaxoontinimo. haddaba ku soo dhawaada mowduucaynu barnaamijka maanta ku eegi doono. Rahaaf Maxamed Al Qanuun waa gabadh 18 jir ah waxaana ay u dhalatay boqortooyada Sacuudi Arabiya iyadoo halkaasi ku barbaartay balse cadaadis soo food saaray waxa uu suurta gashay bishii January bilowgeedii in iyadoo joogta dalka Kuwait ay soo raacdo diyaarad u socotay dalka Thailand taasi oo iska dhiibtay madaarka Bangkok ee caasimadda dalka Thailand iyadoo uu sheegtay in aanay ahayn dalxiis balse ay tahay qof soo baxsaday. waxaa Rahaaf oo waraysi siisay telefishinka laga leeyahay dalalka caalamka qaar ka mid ah ay sheegtay xilligii ay ku jirtay jaamacadda bilowgeedii la dugsigii sare inay ku hamiyi jirtay inay ka baxdo boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ay sheegtay in dulmi loogu geysto haweenka boqortooyada Sacuudi Arabiya ku nool kuwaas oo ay sheegtay in diinta si khaldan loogu isticmaalo oo laga qaado xorriyadaha asaasiga ah ee ay ka mid tahay in aanay gabadhu bannaanka u bixi karin ama aanay tegi karin goobaha laga cunteeyo iyadoo aanu la soconin qof muxrimkeeda ugu yaraan walaalkeed inankeeda odaygeeda ama aabaheed. waxa kale oo ay sheegtay in aan lagala tashanin guurka iyo sidoo kale waxyaalo badan oo asaasiya oo ay sheegtay iyada qudheeda inay soo waajahday in la xidhay 6 bilood taasi oo lagu xidhay in lagu eedeeyay inay isku eegeysisay ragga isla mar ahaantaasina ay sheegtay in diinta islaamku mamnuucaysa taasi oo aanay marnaba ku kicin. Rahaaf kadib markii ay Thailand iska dhiibtay Thailand waxa ay sheegtay in lagu celinayo halkii ay ka timid oo ahayd Kuwait. wadahadal dhex maray sharikadda diyaaradaha ee Kuwait iyo sidoo kale kooxaha madaarka Bangkok ee caasimadda Thailand waxa ay sheegeen in lagu celin doono halkii ay ka timid dibna loo saari doono diyaarad tii ay soo raacday balse hotelkii ay deganeed oo ku yaalay madaarka gudihiisa ayaa hoosta ka soo xidhatay waxaana Twitter-ka ku faafisay warqad qoraal ah oo ay sheegtay inuu yahay dardaarankii ugu dambeeyay ee nolosheeda oo ay kaga dalbanayso kooxaha UNHCR-ta ama sidoo kale hay'adaha qaxoontiga ee UN-ka in ay badbaadiyaan lana siiyo gargaar degdega. waxa ay sheegtay in aanay ku noqon karin halkii ay ka timid oo ay la kulmayso dil ugu yaraan ama sidoo kale ciqaab xad dhaaf ah. waxaana ay sheegtay in dhowr jeer loogu hanjabay in la dili doono ama la xidhi doono. Rahaaf kadib waxa uu soo jawaabay kooxaha UNHCR-ta ama laanta socdaalka qaramada midoobay waxaana ay u sheegeen in la qaadi doono iyaga oo raadiyay in la siiyo damaanad qaxoontinimo. waxaa aqbashay dowladda Australia taasi oo markii ay ka soo duushay madaarka Bangkok ee Thailand u soo wareegtay Toronto balse markii ay Toronto maraysay cadaadis Sacuudigu ku saaray Australia kala noqotay dhalashadii ay siisay ama ogolaanshihi ay ku joogaysay dalkeeda. taa beddelkeeda waxaa markiiba qaabilay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Canada oo ah gabadh waxaana ay ku qaabishay madaarka Toronto iyadoo uu sheegtay inay ku soo dhawaato Canada oo ay tahay maanta laga bilaabo muwaadinad cusub oo ku soo biirtay dalka Canada waxaana taasi ay gelisay farxad iyo rayn. Rahaaf Al Qanuun waraysiyo laga qaaday oo dhowra ka hor dadku waxay ku eedeynayeen inay ka baxday diinta islaamka balse waraysi ay ka qaaday telefishinka Canada laga leeyahay ee CBC loo yaqaano waxa ay ku difaacday diinta islaamka iyadoo su'aal la weydiiyay oo u dhignayd in ay arintani ama qoraalada ay faafisay ay wax yeeli karto diinteeda islaamka. ay sheegtay in aanay waxba yeeli karin oo diinta islaamku ay tahay tii ay haysatay kuna dhalatay laakiin ay diiday kaliya xorriyadda laga qaaday iyo baahiyaha loo diiday. Rahaaf Al Qanuun hadda waxa ay ku nooshahay magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana halkaasi ka bilaabatay nolol cusub oo ay sheegtay in uu bariyay waa cusub oo ka gadisan waqtigii ay ku noolayd iyo wacyiga ay hore ugu jirtay balse
waxa ay sheegtay inay baran doonto luqadda Ingiriiska jaamacadeedna ay dhammaysan doonto kadibna ay ka shaqo gali doonto xarun caafimaad oo ku taala isla Canada. sidoo kale Rahaaf waxa ay sheegtay in haweenka Carbeed si khaldan loola dhaqmo iyadoo la adeegsanayo magaca diinta Islaamka laguna dirqiyo waxyaalo badan oo aanay ogolayn. waxa ay sheegtay in muxrimkeeda ama qofka taladeeda gacanta ku haya oo aynu hore u soo sheegnay oo kamid yihiin walaalkeed, inankeeda, odaygeeda iyo aabaheed ay u dooran waxa ay dhiganayso, waxa ay ka shaqaynayso, dharka ay xidhanayso iyo wixii lamid ah. Rahaaf su'aal la weydiiyay oo ahayd in dhibaato loogu geystay gudaha qoyskeega waxa ay sheegtay in dhowr jeer ay hooyadeed dishay iyada oo ku haysatay sababta ay u tukan weyday salaada, balse waxa ay sheegtay in diinta Islaamku ay bannaynayso in ilmuhu markuu 10 jir gaaro lagu garaaco, laakiin marka uu qaan gaaro uu isagu mas'uul ka yahay naftiisa, dambigiisa aan cid loo xisaabin karin. laakiin taa beddelkeeda waxa ay sheegtay inuuna aabaheed la noolayn, taasina ay keentay inay walaaladeed oo ka weyn yahay sanad uu u geysan jiray cagajuglayn, dil iyo garaacis iyo wixii lamid ah. Rahaaf waxa ay intaasi ku dartay in kumanaan haween Carbeed ama malaayiin haween Carbeed ay ku dhibaataysan yihiin gudaha dawladaha Carabta ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ka mid tahay. Sacuudi Arabiya ayaa kaga falcelisay arrintan inay Canada ka faa'iideysanayso fursadaha haweenka muslimka ah ee ku soo baxay ama sidoo kale iska soo dhiibay dawladaha ay ka mid yihiin Canada. waxaana ay intaasi ku dartay in dawladda Sacuudigu ay doonayso in dib loogu soo celiyo gacanteeda, balse ay sheegtay in aanay Canada ka warcelinin ama aanay ogolaan doonin. xiriirka Canada iyo Sacuudi Arabiya ayaa xumaay ilaa bishii August, kuwaas oo isku qabsaday in Sacuudiga lagu eedeeyay inuu wax istamarin iyo ku kacay inuu maalgelin siiyo kooxaha argagixisada. arrinta ayaa sii xumaatay kadib markii 2 Oktoobar saxafigii Jamaal Khashoggi lagu dilay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. taasina waxa ay keentay in xiriirka diblomaasiyadeed la kala noqdaan dawladaha Canada iyo Sacuudi Arabiya. balse Rahaaf ayaa hadda noqonaysa qof degan gudaha dalka Canada, waxaana ay sheegtay in ay u dhaqaaqi doonto xuquuqda aadamaha, gaar ahaan xuquuqda haweenka. Sacuudi Arabiya ayaa hadda lagu eedeynayaa in uu jirdil iyo kufsi u geystay haween u dhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ku xidhan gudaha Sacuudi Arabiya. waxaana warbixin ay soo saartay Human Rights Watch iyo Amnesty International ay sheegeen in kufsi loogu geystay gudaha jeelka oo ay ka mid yihiin ragga u geystay Sacuud al-Qahtani oo ah la taliyihii hore ee Ayna Salman ama Mohammed bin Salman, kaasi oo hadda cunaqabatayn la saaray, balse warbixinaha qaar ay sheegayaan in cunaqabatayntaasi ay tahay mid aan waxba ka xakamaynin oo uu safar ku tagay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. qofka labaad ee soo qaadanayno ayaa Hakim al-Arabi, waxa uu ka ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee qaranka Bahrain muddo dhowr sanadood. kadibna waxa lagu soo eedeeyay inuu ka qayb qaatay kacdoonkii loogu magac daray Gugii Carabta ee ka dhacay dalka Bahrain 2011. waxaana loo sheegay in Hakim al-Arabi uu khalkhal iyo kharbudaad ku riday qaybo ka mid ah xarumaha ammaanka iyo xarumaha sirdoonka ee magaalada Manama ee caasimadda Bahrain. waxaa sidoo kale intaasi loogu daray in kiiskiisa la baarayo laguna xukumi doono wixii uu mutaysto. kadib 2014 waxa lagu xukumay muddo 10 sanadood isagoo hor racfaan qaatay markii uu xidhnaa muddo ku siman 2 bilood. kadib waxa uu soo duulay dalka Qatar oo ay kooxdiisu ka ciyaaraysay, isaga oo halkaasi isagoo jooga loo sheegay in xukunkiisii dib loogu celiyay 10 sanadoodna lagu xukumay. kadib waxa uu Hakim go'aansaday inuu ka baxo dalka isagoo nasiib wanaag ku sugnaa dalka Qatar oo waqtigaasi xiriirka kala dhaxeeyay uu wanaagsanaa, laakiin aanu ka dhaxaynin heshiis isku soo gudbinta maxaabiista. waxaana uu ka dalbaday dhalasho qaxoontinimo dalka Australia iyadoo oo goor dambe ogolaatay. Hakim waxa uu dalka Australia u wareegay 2014 isagoo deganaa muddo 5 sanadood. 2019 bishan ku jirno dhexdeedii ayaa waxa sii daayay dalka Thailand isagoo oo tagay dalka Thailand sanadiina dhaaftay bishiisii 12 bartamaheedii. waxaana uu tagay inuu soo qaato
toddobabax ama bisha koowaad ee arooskiisa si uu ugu soo qaato magaalada Bangkok ee caasimadda dalka Thailand balse waxaa la kulantay iyada oo dacwadii ka taalo Interpolka iyo sidoo kale xukuumadda Bahrain loo soo gudbiyay cid kasta oo gacanta ku dhigta waxaana uu xakiim sheegay waraysi uu siiyay telefishinka Al Jazeera barnaamijka la dhaahdo kulanka maanta ama liqaa'ul yawm shabakada afka carabiga qaybta ku hadasha waxa uu sheegay in isagoo diyaaradda saaran oo aan weli ka degin madaarka Bangkok loo sheegay lana weydiiyay magaciisa rasmiga ah oo uu ku sheegay Xakiim Al-Cariibi waxaana loo sheegay in waaran qabasho ay ka yeelo isla dalka Thailand waxa uu sheegay in la yaab ku noqotay laakiin waxa uu sheegay xubnahaasi in uu haysto dhalasho Australiana oo halkaasi ku noqonayo haddii la doonayo in la qabtana halkaasi laga qabto laakiin Thailand waa ay ka diiday waxaana ay sheegtay in waaranka yaala uu yahay in loo gudbiyo Bahrain loona gudbin doono sida ku dhasaa badan laakiin wadahadal uu la sameeyay xubnaha asxaabtiisa iyo safaaradda Australia waxa ay Thailand u sheegtay in loo gudbin karin dalka Bahrain isagoo oo dalka Thailand ku xidhnaa muddo 2 bilood laguna xabisay mid kamid ah hoteelada ku yaala caasimadda oo aanu ka bixi karin dhaqdhaqaaqiisa la socday ugu dambeyntii Xakiim waxa la sii daayay bishan aynu ku jirno 12keedii isagoo oo ka baxay dalka Thailand tagina dalkii dhalashada siiyay ee Australia gaar ahaan caasimadiisa Melbourne waxa uu Xakiim telefishinka Al Jazeera u sheegay in sababta loo beegsanayo ay tahay madhabka uu haysto oo ah madhabka Shiicada isla mar ahaantaasina ay Bahrain ku hayso cadaadis xoogan shacabka Shiicada ee ku nool gudaha Bahrain waxaana uu sheegay ku dhawaad 500 kun oo qof oo xidhan arrimo siyaasadeed inay ku xidhan yihiin dalka Bahrain su'aal la weydiiyay oo ahayd inuu ka qayb qaatay arrimo kharbudaad iyo arrimo siyaasadeed waxa uu sheegay in aanay waxba ka jirin balse mudaharaadkaasi uu la kulmay isagoo socda laakiin aanu ka qayb qaadanin waxyaalo khalkhal gelinaya ammaankiisa waxa uu Xakiim sheegay in uu ka qoostay ku noqoshada dalkiisa ilaa inta ay jirto xukuumadda hadda ka talisa ee boqortooyada laakiin waxa uu sheegay haddii xukuumaddaasi ka tagto inay suurtagal tahay inuu dib ugu laabto dalkiisa su'aal la weydiiyay oo ahayd in xubno qoyskiisa ay xidhxidhayeen ama asxaab yihiin waxa uu ku jawaabay in aanay jirin xubno uu og yahay oo aanay qoyskiisu inta badan ka hadal arrimaha xukuumadda Xakiim waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay isagoo Bahrain u soo hooyay kulanmo kala duwan guulo la taaban karo sumcadda Bahrain kor u qaaday in aan lagu ixtiraamin kulankiisa ciyaartooynimo iyo sidoo kale laacibtinimada uu hayay dalka Bahrain laakiin loo ciqaabay sidii qof ajaaniba Xakiim ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dalalka Carabta ay ka jirto dhibaato xoogan kuwaasi oo loo kala saaro Sunniga iyo Shiicada waxaana uu sheegay gaar ahaan dalka Bahrain inay ka jirto in aad loo ciqaabo dadka Shiicada ee ku nool gudaha Bahrain tani intaynu isugu iman doono barnaamijkan barnaamij xigay waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo